xaaladda madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida ee waddanka Ethiopia Cabdi Maxamuud Cumar ayaa laga deerinayaa iyadoo qoyskiisu ay sheegeen in jirdil xun lagu geystay gudaha xabsiga ku xiran yahay. haddaba xubno ka mid ah qoyskiisa gaar ahaan hooyadii ayaa la soo xiriirtay TV-ga Universal qadka ayayna hadda si toos ah ugu jirtaa Diib Mahad Colow oo ah hooyada dhashay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia mudane Cabdi Maxamuud Cumar. maama haddii aad maqli karto bal adiga ayaana la soo xiriiray maxay tahay sababta aad noola soo xiriirtay? waxay tahay maanta anagu qadadii baan maqaarnay anagoo 4 ruuxa haye waanu u tagnay Cabdi Maxamuud oo kolkaan gurigii galay baanu aragnay ninkii oo la jirdilahayo haye way soo bixiyeen xoog bay u soo jiideen ilaa 7 jaray ka soo tuureen haye 7 jaray anaguna aan daba orodno noqaylinay banaankii jarada hoosteedu yuu ku tuureen waa gartay marka anagi waan qaylinay kol 4 iyadii kolkaan isku daray dhawaaqeeno ooynay anagi wayna soo eriyeen haye aniga iyo gabadh hadii Ilaahay ka dhigo way dileen oo aad bay u dileen oo aad bay u garaacayeen xitaa madaxa way ka garaacayeen diikada uu qabaa waa gartay isagii aflawadiiba cabaaday tallaayay buu yidhi waaye annaguna waan qaylinay waa gartay way jiideen hiriiririg bay way jiideen kolkii anagii neeriyeen bay jiideen annaguna waa aniga gabadha qadar qabo iyo anigaa orodnay labada dumarkiina meel bay nagaga hadheen kolkaa waan orodnay waan garab dhignay iyaga oo jiidoo hadalkii uu gabay oo jiidahayaan baanu meel ka eegnay markaa meel aanu isini waa suuli oo garaacayaan madaxa ka garaacay oo qoriga shubkiisa la dhacayaan ayaana dilay anagina meel ka eegno garab orodnay markaa anagina waanu qaylinay way jiideen xoog 8 baa jiidaysay ninka 8 oo kor u qaadi weydo jiidaysay hiriirita ku hayay waaya anagi waan qaylinay waana garab orodnay Ilaahay oo noo kacbaanu niri waan barinay waan kacnay anagi baa isku qaylinay markaa qoray haddana noo soo direen meel aanu isini waa suuli aniga gabadha qadar qabo meel aanu isini waa suuli ayay taa ugu iyagoo jiidi taa ugu tuureen waaya intaa kadib maxaa dhacay way neeriyeen annaga oo banaanka la idin saaray annaga way neeriyeen banaanka la idin saaray meel banaanka noo saareen annaga anigu wayba i tuureenba anigu kolkaan say waan fadhay isku tuuray tuureen oo gabadha neega qadar qaba aniga ay qabatayba waaya raashinkii aad u wadeen ma la idinka qaada mise aynan qaadin raashinkii way nagu diideen ma aynan qaadin raashinkii waan soo celinay maba aynan na tusinba saasay meel ugu rideenba meel bay ku rideen ama kolkii isiri jiinka yari baa ugu xidhan tahay yaanu isiri waa suuliyo intay saa Ilaahay dhigo ugu tuureen bay saa u dileen oo gawda ka saareen waaya wuu bedelmay isagiina wuu bedelmayda nafta wuu bedelmayda isagoo sidii meylay jiidayeenba marka dabcan ma hubiseen in isaga wali uu nool yahay oo xaaladiisu ay caadi xageenu ka hubin kolkii meydkuba ahaa meyd wuuba suuxay kolkii wuu suuxayba markaa kolkaanu nidhi meydka na siiyo oo meydka noo soo tuurana annagii bayna soo eriyeen waaya marka waxaanu ku ooleynay meydkiisaanu ku samraynaa meydkaa nala siiyo wuxuu ku xiran yahay meyd wuuba dhacayba annagu meydun baanu wuu suuxayba dhag wuu meyd buba ahaaba waaya halkuu ku xiran yahay way ku tunteen qoriga shubkiisa la dhaceen way ku tunteen anaga arkayno intahayga maanta inay wax kama tusin waaya maxaa keenay in la dilo ama ay jir dilaan ma isaga ayaa ka dhaga adeegay amarkii ciidamada xabsiga ee ku haya mayaguba awalan waanu u tagaynay maya isagii ama kolkaanu galay baanu la kulanay iyagu aqalkiisii ku dilayo aqalkiisii ku garaacin baanu la kulanayna waaya marka maxaa tilaabahood qaadeen adinka si arrintan aad xal ugu heshaan yaanu tallaabo u qaadaynaa waxaan tallaabo u qaadnaba ma haysano wax nala hadlaba ma haysano
wayba neeriyeen way neeriyeen wax nala hadlana ma haysanaba wax nala hadlana ma haysano miyaanu isagu lahayn qareenno u dooda oo kiiskiisa maxkamadaha ay hor yaalaan ka dacwooda wax qareena oo neeku kuu sheega ma garanayo wax qareena kuu sheega niyu booliskiiyo dadkii uu wadayna moojiga wax qareena kuu sheega ma garanayno waa gartay marka hadda xabsiga Addis Ababa ku jira miyaa anagu dee halkaan baanu ku ogeyn isagoo aanu moodnay nafti inay ka baxday iyo in kalena war kuma hayna halkaan baanu anagu ku ogeyn oonu kaga nimin oo naga soo eriyeyba meel tuuliya ay afka u geliyeen meel tuuliya oo kiinka yari saa ugu dhisan tahay oo aniga gabadha khadrananisilmalaha waa tuuli ayay saa ugu tuureen madaxa kolkii noogu dambaysa aragaanu aragno waaye hadda maxaad doonaysaan marka waxaanu doonaynaa dee hadduu nool yahayna in nala tuso hadduuna noolayna in maydkiisi naloo soo saaraanu rabnaa ma isku daydeen inaad maamulka kale ee deegaanka iyo dadkii guud ahaan Soomaalida ee waxgalka u ah la kaashataan balse arrintan wax loo qabto yaanu la kaashan badee waxaan la kaashanabaano ma garanayna waxaan la kaashanayna ma garanayna gabadhiisana waad la hadlaysaa gabadhu qaba way la fadhidaa gabadhi qadari uu afar ruux baan walaashay baa igu jirtay marka anagu wax aanu u dhaqaaqnay wax aanu garanaynaa midna ma jirto anigu hooyadii baan ahay oo waan qaraxsanahay wax anu maydkiisa abaal ku qaba maanta waan sabri lahaa maydkiisa haddaan arko maxaad codsanaysaan marka waxaan codsanaynaa hadduu nool yahayna in nala tuso hadduu dhintay oo dileedna maydkiisa ama aasana inayna siiyaan labadaasaan codsanayaa miyaan lidiin sheegin waqti maxkamad la soo taagayo oo arrintiisa waxay noo sheegeen jimcaha soo socdaan sugayna maxkamadda jimcaha soo socdaan sugayna way ka dadejiyeen haye ma jimcaha soo socdaan sugaynay waayahay marka iyadoon jimcihii la gaarinaya arrintan dhacday ya iyadoon jimcihii la gaarinaya arrintan dhacday jimcihii weli maynaan gaadhin jimcaanu u fadhinay inanka la keeno oo ballantu jimcahay ahayd waayahay gabdhaha kale kula jooga bal noo dhiib iyana gabadhiisii baan u dhiibayaa waaya hello waa ku maqlaa walaal magacaaga iyo sida ay bal wax u dhaceen maanta ogaanta magacaygu waa Sadiiqa Cabdi Ismaaciil maanta markaanu qadadii u geynay markay ahayd 3 galabnimo oo 10 daqiiqo la yaanu galay waxaana laga hor keenay oo qolkii uu ku jiray markaanu hor istaagnay laga hor keenay isagoo 8 askari ay u hanjabayaan hadallo badan la leeyahay waay markaan nidi maxaa dhacay way soo tuqiyeen ilaa uu 3 jaranjar oo isdul yaala ka dhulka uga soo dhacay waay markuu dhulka u soo dhacay wuu qayliyay markuu qayliyay kadib waanu ka soo daboornay anaguna jaranjartaanu ka soo dabadegaynay waxay bilaabeen inay jirdilaan oo bahalo gaagaaban ay wateen bay feedhaha kala dhaceen waay kadib waxaa dhacday inaanu qaylinay annagii askartii ayna kala tuurtay buuq iyo qaylaa meeshii ka dhacay dad badan baa isugu soo baxay waa la jiiday anigii markii waan miyir beelay hooyiyaa daba orday ilaa ay sii jiideen nolol iyo dhimasho geeri iyo nolol wuxuu ku sugan yahayna maanaan garanaynin adiga xaaskiisa ayaa tahay ani xaaskiisa aan ahay waayahay maanta ka hor ma laydin ogolaa inaad aragtaan cuntada u geysaan xaaladiisa ogaataan dawada u geysaan ha cuntadaanu u geynaynay waanu arkaynay dee sidii ruux maxbuusa yay ahayd laakiin maanta qorshuhuu ka bedelaa markii dambeenu ku noqonay meeshii aanu nidhi miyuu dhintay miyuu nool yahay sabab maxay waxaani u dhacayaan markaanu su-aalaha weydiinay annagii waa nala soo eriyey waaya dumar askaraa naloo soo diray ilaa meeshiina laga soo jiiday ka hor maanta haddii aad la kulanteen ama la kulmi jirteen sidee u ahaa xaaladiisa maxaad ku aragteen xaaladiisu adigu iska xanuunsanayay dawana lama siinaynin laakiin dee xaalad ruux maxbuusa ayuu ahaa marka ma idinla sheekaysanayo oo fursad mu hesheen inaad la hadashaan haa waan la hadlaynay
marka de wunala hadlay sidii ruux macbuus ee caadi loo wada hadlo waqti go'aan buu ahaa ilaa 7 daqiiqo waan la hadli karnay ma codsigiina muxuu yahay hadda maxaad doonaysaa codsigaygu wuxuu yahay haddii uu dhintayna inaan meydkiisa aasano haddii uu nool yahayna inaan noloshiisa ogaano kuwaas waxay ahaayeen hooyada dhashay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud Cumar iyo xaaskiisa oo telefoonka Ethiopia igu waramayay kana waramayay dhibaato ay sheegeen in loo geystay madaxweynihii hore isagoo ku jira xabsi ku yaala wadankaasi Ethiopia waxaan la xiriirnay wasiirka warfaafinta ee wadanka Ethiopia iyo wasiirka warfaafinta isgaarsiinta wadanka Ethiopia Ahmed Shide ahna gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia telefoonkiisana kama aanu jawaabin markii aan isku dayn inaan xiriir la sameeyna balse aan wax u weydiino arrinta la xiriirtay jirdilka la sheegay in loo geystay Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia